السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo ninkii maxamed abiib ahaa. maxamed abiib waa la qabtay isagoo oo ka soo degay diyaarad imaaraadkana ka yimi ayaa airportkii hargeysa isbaara loogu dhigtay. waa la afduubtay, si kale kuma garatide waa la afduubtay. mooryaan ayaa afduubatay, madaxa bacmadow loo gashay, waa la jajuubay, waa la qasbay, waa la jiidjiiday, waa la bahdilay, waa ka haysteen. maanta jaan iyo cirib meel uu dhigaci taqaana iyo meel lagu haysto ma jirto. waxaa bacmadow afka u gashay, madaxa u gashay, waxa bahdilaya oo madaxa bacda madow u gashay waa wiilkii muuse biixi oo uu madaxda ka dhigay, oo uu sirdoonka somalilan u dhiibtay suu dadka u xukumo. muuse biixi suu dadka u jajuubo, suu dadka ugu qasbo, oo maxaanku irahdaa uu xoog uga dhigto. wiilkiisa madaxa buu uga dhigay sirdoonkii somalilan. marka waxa weeye muuse biixi sidee wax u wadaa? waxaa su-aal in laysweydiiyo ah. su-aal waxaa ah in laysweydiiyo, muuse biixi siduu wax u wadaa? muxuu damacsan yahay? maxay tahay ulajeedadiisu? maxaa waxaan uu u samaynayaa? muuse biixi waxaan ognahay gobolkii awdal inuu wareegayo, inuu saa u wareegayo oo daashoonayo, oo marba xoolo loogu qalaayo gobolkii awdal, xariirad iyo meelaha inuu maraayo. raggii maxaan ku irahdaa awdal u dhashayna sidaas uu u galaayo, uu u bahdilayo wiilkiisii. uu wiilkiisii leeyahay orodoo ka shaqayso. marka muxuu muuse biixi ka damacsan yahay dadkan reer awdal? maxay tahay ulajeedadiisu? maxaa dhacay? kolley doorasho ma ogola muuse biixi. doorasho inay dhacdana hey haata ay ka tahay somalilan inay ka dhacdo. muuse biixi ilaa qasab looga rido maahane kursigan inuusan ka degaynin. hadda garxajis kursi ma rabtaan buu yidhi. garxajisow haa, ceeri gaaba ku duula, laaya hartiga ceeri gaaba degan, gala dagaalka. garxajis waa bilaabeen, waxay ku duuleen ceeri gaabo hartigii deganaa. waxay bilaabeen inay dadka sidii laascaanood dadka in loo halhallaysto, in dadka maaragtay masaakiinta ee guryahooda jooga loogu dhaco, loo dilo ayay bilaabeen. halkan boorama iyo gobolkan awdal waad u jeedaan wuxuu samaynayo. ninkii yaraa ee u hadli jiray reer boorama ee ugu codka dheeraa ayay maanta qabsadeen, oo meelay geeyeen maanta aan la garanayn, oo la sheegayo in la garaacay, oo la jir dilay, la ahaanaystay, la bahdilay ayaa la sheegaya. marka muuse biixi siduu wax u wadaa? xagee wax ku wadaa? dadkan xagee u wadaa? waxaan uu samaynaya maxay tahay? waa la yaaban yahay. maxay tahay xilligan waxaan wareerkan iyo qayladan iyo buuqan uu geliyey dhulkii? waa maxay? waa wax lala yaabo runtii. dadkii reer awdal markii ay kaceen oo mudaharaadeen kulli waa la garaacay. hooyooyinkii baa timaha la jiiday, inta la qaawiyey maryihii laga dhigay, askar lagu fasaxay, la jiiday, la karbaashay, si xun loola dhaqmay, iyagoo ooyaya meel walba taagan. dadkan waa la caburinayaa. waxaa la leeyahay ma hadli kartaan, sidaan doonaa idinka yeelaynaa, dushaan idinka maraynaa,
kabahan idin kula dul soconaynaa afkan cag idin kaga jiidaynaa wax aad tihiin ma laha carar hadla iska badaaya wax inaad samaysaan runtii dadka reer awdal waa dad nabadeed Soomaaliyana dad nabadeed kuma noolaan karaan Soomaalidu waa wild animal kana in la iska cisho maahane si kale ugama amaan helayst marka reer awdal dad Soomaalidan ku dhex noolaan kara ma ahaba haddii ayna maxaan ku raahdaa libaaxa hilibka ka ridanay oon iska celinayn waxa weeye sidaan ma anfacayso ninkan yar ee la qabtay maanta la bahdilaayo waa nin reer awdal markay samaysteen maxaan ku raahdaa state-kooda magaciisi iyo calankiisi oo la wada hawshi waa ninkii kala daadiyay laftirkiisu khalad buu leeyahay maanta isagii bay haysataa kuwii uu dhahay Soomaali intuu orda uu maxaan ku raahdaa intuu tagay boorima uu ka dhex boodbooday uu lahaa Somaliland baanu nahay xaqeena raadsanayna xaq u raadsanayo ma hadli kartid baaba la leeyahay waxa loo dilay loo bahdilay loo xiray loo xabisay waa ma hadli kartid maxaa u hadashay marka xaqa uu helayo maxay tahay ee kale hadal qof loo diiday xaqa kale uu sugayo maxay tahay waa ma jiro waa markuu caqligu shaqeynayo dadku fikirayaan way u jeedaan natin xaq maanta la siinayo dadkan ma jirto waxa weeyaan wiilkan horta wuu hadlay waxaa lagu haystaa laba arrimood arrin waa maxaad u hadashay oo aad u tiri maxaa la dhahaa ishag SNMT maxaad wax uga sheegtay ma ahayn buu yiri anagu SNM mana noqon mana ka qayb galin SNM waa tii wuxuu yiri dila iyo boorma dadka iyaga ku leynaysay oo 800 oo qof dishay maxaa saa u tiri waa lagu haystaa horta dee waa runtiisu SNM ma ay ahayn reerkan gada biirsi SNM ka humay jirin qaybna kama ahayn marka waa runtiis hadalka uu yiri in dadkoodii la dilayna waa run waa wax duuban waa wax meel walba ku jira waa wax mar walba odayaasha iyo wax garadka reer Samaroon ay ka hadlaan gada biirsi waa wixii loo eryanayay nin dhan oo oday u ah oo reerka maxaan ku iraahdaa madaxdiisii oo isin loo baacsanaay oo Muuse u baacsana ciidamada iyo wiilasha xunxunka uu ku diray oo loo bahdilay oo loo diiday deegaankiisa iyo dadkiisa inuu u yimaado marka caburin aad u xun ayaa lagu hayaa gobolkan awdal marka ninkaana maxaa u hadashay baa lagu haystaa waxaan u jeednay gobolka awdal dhalinyaro yar oo dadkoodii waagaa la laayay baroor diiq u sameynaya oo la laynayo oo la garaacayo waxaan u jeednay gabar gaari la marsiinayo oo ciidanka Soomaaliland ay marsiinayaan marka waxaasoo dhan runtii waxaa mas'uul ka ah hadda islaamahan ooyaya waxay leeyihiin raggayagi baana dilaya oo nalagu soo diray oo nalagu soo fasaxay inagi baa isdilayna raggayagi ayaa timahana jiidayo na qaawinayo na jiidayo na garaacay marka dee maxaa la samayn karaa haddii wiilashiinii la idinku soo diray oo ay noqdeen ay la yiraahdo qabta oo idinku soo yaacayaan oo idin qabanayaan maxaa la samayn karaa waa dhibaatadeeda leedahay waa dhibtii haysatay gobolka Sool oo kale midaan oo ay ka kaceen oo ka dhiidhiyeen oo wiilashoodii ayda oo kala ahaa ee la amrayay ay caqliga u soo cesheen oo maskaxda u soo cesheen oo garaadka u soo cesheen oo maxaan ku iraahdaa yiraahdeen maxaa idinka khaldan dadkiina maxaa u laynaysaa dadkiina maxaa u bahdilaysaan marka ay tooseen marka waxa weeye
midaan wax fiican ma aha runtii. muuse biixi wuxuu wadana wax wanaagsan ma aha. reerkan reer sheekh saxaaq xitaa waxaan uma wanaagsana qudhooda uma wanaagsana. sidaan qaran laguma noqdo, sidaan dowlad laguma noqdo, sidaan ma wanaagsana. wixii aad ka sheegi jirteen siyaad barre oo dhan baad samaynaysaan. muuse wuu samaynayaa. muuse waana la laayay bay dhahaan beesha reer saxaaq, iyaguna waxbay laynayeen. oo waa kan maxamed abiib uu sheegayo SNMT inay laysay dad badan oo beeshiisa ah oo samaroon ah ama gadabiirsi ah, inay guryahoodii ku laayeen oo dila iyo boorame ay ku laayeen. waa kanoo laascaanood dad bay ku laynayeen, hadda ceerigaaba dad bay ku laynayaan. marka waana la laayay baa lalahaaye maxaa maanta wax loo laynayaa? waa su-aal. sidaas uma fiicna runtii, sidaas uma fiicna, umana fiicna ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ah iyo idinkuba idinma fiicna. muuse wuxuu samaynaya wax fiican ma ah. caqligu ha shaqeeyo. muuse waxa weeye caburin buu wadaa. siyaad barre waxaad ku sheegteen inuu dadka xirxiri jiray. kuwa la wareysanaya arkay dhahaya siyaad barre dadku xirxiri jiray, dadku caburin jiray, dadka habeenka guryaha loogu soo dhici jiray, waa la qaadi jiray, yaa waa la jir dili jiray, xabsiyadaa la geyn jiray. hadda wuxuu samaynayo waa maxay muuse? saktan waa same dee, marka waa isku mid. muuse waa dictatori. siyaad barre dictatori buu ahaa bay dhahaan. muuse xataa waa dictatoriga ugu xun wey. wuxuu samaynaya waad ujeedaan. marka shalay wixii waa laygu sameeyey aad lahaydeen ayaad maanta samaynaysaan. ma argoosiba? maxay idinka tahay? lama garanayo. wax la fahmi karo ma aha middan. ummadda sida ka daaya. sidaan dowlad kuma noqon kartaan, sidaan wax kuma maamuli kartaan, sidaan cid kuma wadi kartaan, sidaan dhex kuma noqon kartaan, sidaan si ma ah. waxaan leeyahay ugu dambeyntii free maxamed abiib. inkasta oo ay dadkii uu lahaa somaliland baan ahay, somaliland baanu nahay, maxaan ku irahdaa awdal state uu ka hortegayay, loo diray gobolkiisi, loo diray oo layidhi orodoo somaliland baan nahay dheh. waa la isticmaalay maxamed abiib whatever. nin horta codkiisa dhacsada wey. codkiisa nimaan maxaa af aadan alla kaagoowa ma ahayd wixii la dhihi jiray. waa inaad codkiisa horta codkiisa wuu dhacsanay, laakiin codkiisa shaqsinimo u dhacsanaya maxamed abiib si shaqsi ah. dadkana wuxuu ka dhigayay dad uu isticmaalo. uu xoog buu ka dhiganayay, awood buu ka dhiganayay. waa dadkiisa ha ka dhigto hadduu doono. absolutely qof kasta dadkiisa xoog buu ka dhigtaa, awood buu ka dhigan karaa. laakiin dadkiisu waxay rabeen awdal state ninka hor istaagay ee loo diray isagu ahaa. waxaan u jeednay in uu tegay awdal state ama uu tegay boorama oo uu lahaa somaliland baanu cadkayaga iyo xaqayagaan ka dhacsanaynaa, iyadoon ogeyn waayadaasoo dhan inay guuxaysay awdal state. dadku guuxayeen oo maamul ay samaysteen oo meel walba ay ku shirayeen. etoobiya ku shirayeen, maxaan ku irahdaa muqdisho, jabuuti ku shirayeen, ayaa loo diray maxamed abiib. waa la isticmaalay, haddana waa la tuuray sidii qashinkii. waa kano waa la bahdilaa, waa la qabtay. tan kale labaad aan u soo noqdo, waxaa lagu haystaa maxaad ula kulantay dowladda soomaaliya xubno ka tirsan, maxaad imaaraadka ugula kulantay? taasna in lagu qabsado ma aha, waa qalad. waayo muuse biixi oo somaliland madax u ah ayaa la kulmayay madaxweynaha soomaaliya ee dowladda federaalka soomaaliya ee maxaa la dhahaa xasan sheekh maxamuud ayuu la kulmayay.
oo aanu ogeyn Jabuuti ku shirayeen marka maxaa ku gooni ah maxamed abiib hadduu la kulmo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya maxaa ku gooni ah ninkii dhammaan Somaliland xukumayay baaba la kulmayay maxaan ku irahdaa xasan sheekhe madaxweyne Soomaaliya la kulmayay xaq ma aha midaan wallahi it's not fair waxaan fair ma ah waxaan wax wanaagsan ma Muuse Biixi inuu ciduu doono la kulmo adigana lagu dhahay cidna lama kulmi karto cidna ma salaami karto cidna lama hadli karto waa maxay waxaas lifekaaga miyaa la controlaya khalad way in lifekaaga la control waa absolutely wrong way waxaas waa abuse waa dictatornimo waa khalad waa ceeb wax fiican ma ah راني سلام يا وحان ليه ودنبينتي محمد أبيب فري محمد أبيب وحان ليه كرنا ماله سيالا دتكيس لنا كراعي وايه محمد أبيب